السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada janalka qaalin media haddaad tahay daawado cusub ee rukumo kanaalka oo subscribe-ta ku dhufo haddii aad hore ugu jirtana like-ta iyo comment iyo share-ka la dhac السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan maanta waxaan jeclahay in aan idinla wadaago wararkii caalamka kuwa ugu xiisaha badnaa iyo kan dalkeena Soomaaliyaba. Waxaan ka hadli doonaa xaaladda dalka Pakistan iyo siyaasaddiisa halka ay marayso, waliba gaar ahaan dhibaatada ra'iisul wasaare Imran Khan ka haysata mucaaradka iyo maxkamadda sare oo u adeegaysa danaha Mareykanka. Sidoo kale wararka ugu dambeeya ee dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya iyadoo la soo sheegaya in ciidamada Ruushka goobo fara badan ay iskaga baxeen. Ugu dambeynna dalkeena hooyo ee Soomaaliya iyo dowladdiisa oo ka dhammaan weyday doorasho ayaa lagu soo celinayaa. Haddaba inta aanan u gudagalin wararkii oo fidsan ama daawadayaal, waxaa idinka codsanayaa inaad like-ta, share-ta ku qabataan videoga haddii uusan janalka uu ku rukunayna aad subscribe-ka ku dhufato. Mahadsanidin. Siyaasadda dalka Pakistan oo maalmahan dambe sii darsatay ayaa hadda u sii dheer in maxkamadda sare oo uu Imran Khan islahaa garsoor cadaalad ayay noqonaysaa ee go'aankii dib ugu soo celisay golaha baarlamaanka oo uu maalintii hore kala diray gudoomiyaha baarlamaanka Qaasim Khan Asuri, kuna tilmaamay xubnaha baarlamaanka qaar ka mid ah ama qaarkood in ay khaa'inu wadan yihiin, danaha shisheeyana u shaqeeyaan. Imran Khan go'aanka marka ay maxkamadda soo saartay ayuu shacabkiisa khudbad qiimo badan u jeediyay, waxayna ahayd inuu yidhi in uu dalkooda uusan go'aan u madax bannaan aysan qaadan karin sida dalka ee uu xifaaltanka ka dhaxeeya eena dariska yihiin India ee welina Pakistan iyada oo 220 milyan ah haddana Mareykanka uu maamulo shacabkeedana tirada iyaga oo ah waxba go'aan gaari karin iyo arrimo dhowr oo intaa ka badan. Laakiin jumlada ugu muhiimsaneed ayaa ahayd in uu yiri Imran Khan, aniga marka horeba ruux shacabka ka mid ah ayaan ahaa oo cod shacab ayaan mansabka ku imid, haddana codkooda ayaan ku dagaalamayaa, mar kalena waxaan kalsooni ka qabaa in aan codkooda ku soo noqdo, taas oo ku duqeynaya mucaaradka uu Mareykanka keensaday. Inta kaliya ee la igu dagaalsan yahay waxa ay tahay, ayuu yiri asoo hadalkiisa sii wado, Pakistan cabiid Mareykanka ha u ahaato, anna waxaa laygu adoonsaday kelmadda laa ilaaha illa allah oo alla kaliyeeda ayaan adoon u ahay. Imran Khan oo khudbadiisa ee dhici karto shacabka Pakistan in uu kaga helo taageero buuxda maadaama ay yihiin dad diinta ku adag. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Imran Khan waa in uu keenaa xeelad uu kaga gaashaanto dhagarta Mareykanka iyo mucaaradka ee Pakistan. Golaha baarlamaanka wararka hadda ugu dambeeya ee naga soo gaaraya ayaa sheegaya in Imran Khan codkii kalsoonida kala noqdeen iyada oo 3 xubnood oo dhankiisa ah la iibsaday. Daawadayaal, arrintan oo faahfaahsan wararkeena dambe ayaan ku eegaynaa. Haddana waxaan jaleecaynaa dhankaas iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka sida lagu waramayo idaacadaha caalamiga iyo maxalliga warhayaan. Waxaa la sheegayaa in ciidamada Ruushka ee dib u gurasho ka sameeyeen goobo fara badan oo ay ciidankoodii joogay, ha u badnaadaan sida qariidada ku xusan. Intaana waxaa sii dheer hareeraha Kiev iyo Sumy iyo qaybta waqooyi galbeed oo dhan, iyo in ay kasii baxayaan goobo badan oo bariga
sida Kherson iyo Mariupol oo iyadana go'doonka ciidamada Ukraine-ka ka qaadayaan. Maxaynu is oran karnaa Ruushka dagaalkan miyuu ka faa'iiday ama waa uu ku khasaaray maadaama uu goobihii istiraatiijiga ahaa iskaga soo wada baxay, ama qorshe kale oo rogaal celin ayuu damacsan yahay Ruushka? Daawadayaal, ra'yigiina sida ay idinla tahay xagga hoose commentida inagula wadaaga idinka oo mahadsan. Wararkeena qaybta ugu dambeysana waxaan ku eegaynaa dalkeena hooyo halka ay xaaladiisa siyaasadeed marayso, waliba gaar ahaan doorashooyinka xildhibaanada ee mixno fara badan ay ka taagan yihiin. Maxaafad iyo mucaaradba midba midka kale oo uu eedeynayo. Maalmahan wararka ugu xasaasiga ah waxa ay tahay in ay guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed yiraahdeen kuraas qaar ayaa lagu soo celinayaa doorashadooda maadaama aysan xor iyo xalaal ahayn. Waliba kuraasta waxaa ugu xasaasi badan kan kursiga Hope number 86 oo uu ku astaysan yahay Mudane Fahad Yaasiin. Hadda wararka naga soo gaaraya baraha bulshada iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa ah hadiiba ra'iisul wasaaraha iyo guddigiisa doorashooyinka labadooda qayb fiid iyo siid albaabada cadaaladda ee u furayaan kuraasta ee xildhibaano dhowr ah ku soo baxeen. Maxaa caqabad ka haysta in ay sidoo kale cadaalad u raadshaan kuraasta banaadiriga ee aadka loogu muransan yahay? Xitaa aysan shacabka Soomaaliyeed shantaas kuraas arag mid ka mid ah oo lagu tartamayo. Welina intaas waxaa sii dheer in codad sir ah oo caddeyn u ah in kuraasta la musuqmaasuqay ee baraha bulshada ku dhex wareegayaan, iyo oday dhaqameedyada kuraasta beelaha ka soo jeeda oo dhowr jeer cabasho ka muujiyay. Taasna waxa ay tahay caddeyn aan marag u baahnayn ee ra'iisul wasaare Roble xukuumaddiisa hortaala eena faragelin sharci ah ku sameyn karayso maxkamadana ee la beegsan karayso dadkii faldambiyeedka lahaa ee codadka sirta ah laga hayo. Laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamkaba waxa ay arkaan ra'iisul wasaare Roble in uu iska indhootirayo dhibaatada ee indhihiisu kaliya u cad yihiin halka ay danta ugu jirto. Daawadayaal, maxaa lagu tilmaami karaa cadaaladda noocaas ah in kursi lagu soo baxay welina aan lagu muransaneyn ninkiisana uu ku soo baxay la daba dhigto, halka kuraasta lagu eedeeyay ra'iisul wasaaraha in uu adeerkiisa uu kursi ka mid ah si toos ah ugu dhacay iyo kuwo kale oo lacago lagu qaatay uu iska indhatirayo. Taasna waxa ay shacabka Soomaaliyeed ku abuurtay kalsooni in aysan ku qabin ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa la shaqeeya. Intaasna waxa u sii dheer habaarka beelaha banaadiriyeed oo kuraastooda si ba'an ugu tuntay, waliba si arxan daro ah. Ra'iisul wasaaraha waxa ay ugu baaqayaan aakhiradiisa in uu u shaqeysto oo uu qaladaadkiisa saxo inta uu adduunka ku nool yahay xilkana hayo. Haddana daawadayaal, ila daawada codadka sirta ah ee laga hayo musuqa kuraasta banaadiriga lagula kacay iyo habaarka beelaha kuraastooda la dhacay sida ay baraha bulshada ugu baahsan yihiin. Intaa dabadeed, daawadayaal, ra'yigiina ka dhibta. intii kulanti dambe waxaan idin leeyahay amaana Allah. وزير يورا سايو وكوفي عنا ولا وزير وحي aan ku ballanay maxaa looga baxay walaalo wixii aan ku ballanay cid ka baxday liibaan shuluq weydii shan xubnood aan ku dhahay ashraaf ah oo kulli ashraaf ah oo ninkii oo liibaan shuluq la socday ma oo indhaha waaweynaa shan qofood ashraaf oo keenay shantaas qof la qoray mid hadda buuqa dhalasay waay Ibrahim message.
abdooge wasiir midaaba taagan problema taagan problem kale haddaan ku darno horta kan hanoo dambeeya kan problemkan taagan basmo meel ay ka muuqato ma leh adig kan liibaan ii sheeg horta kan liibaan igala hadal waxaan ka hadlaysana ma aqaaniyo shantii qof oo ku heshiin liibaan aaw ana liibaan ma ogi kaas aniga waxaa weydiisaa liibaan shuluq iyo ayagaa ka warqabaanama maba aadine iyo sacdiye horta hadda waxaan kaa rabaa wasiir hal xanuunaa jiro waxaan ku dhahay kursigii ah ku qortay odaygii habeenka ku qor aan ku dhahay ee camuudiga ah axmed iikar ahay kuma qoran aan ku dhooya ifahan horta kow abo axmed iikar waxaaba ka daran kursi karaaba soo ahaa si aan ahayn u qortay kaas hal qof waaba la sii karaa kan liibaanshaasha u qoran maxaa waay kan itushika maqale liibaanshaasha oday uu leeyahay beesha faqi oo ka mid ah beelaha banaadiriga ayaa isku soo baxay uga cabanayaan ra-iisul wasaaraha dalka iyo mas-uuliyiin ku hayb ah ka dhigeen degmada xamarweyne ee muqdisho waxayna ku eedeeyeen in ay dhacayaan kursiga ay golaha shacabka ku leeyihiin beesha faqi waxayna baa ku aadan in laga caliyo u direen beesha habargedir iyagoo sheegay in aysan ogolayn in kursiga ay matalaada golaha shacabka ay ku leeyihiin loo dhaco haweeney aan beesha faqi u dhalan dhanka kalena ra-iisul wasaaraha mas-uul ku hayb u dhaxdo waxaa ku fadhiyo qabiilkaas oo la yiraahdo reer faqay waxa ay u wareejiyeen qabiil kale oo la yiraahdo reer sheekh oo ayaga aan shaqo isku lahayn waxay la mid tahay waxaan rabaa inaan faahfaahayo ra-iisul wasaaraha oo ah ka soo jeeda beesha sacad oo kursi ku fadhiyo oo xildhibaan ah intuu ka wareejiyey oo wuxuu siiyey ceyr uu siiyey laakiin oo kor ay ka wada yihiin habargidir tanna waa sidaas la mid ah reer faqay uu ka wareejiyey reer sheekh uu siiyey laakiin korre ay ka wada yihiin reer banaadir arrintaas waxay xadgudub ku tahay hanaankii doorashada iyo heshiisyadii ay saxiixeen madasha wadatashiga qaranka waxaan rabaa ugu dambayn ra-iisul wasaaraha haddii culummada warkooda uu maqli waayo in badan ay ka dacwoodeen intii arrintan aysan dhicin oo aan la soo saarin way ka dacwoodeen dacwadooda kadib waxaa loogu bedelay meeshii rag ahay xildhibaankii ku fadhiyey in dumar laga dhigayba ragga aan soo tartami karinba annagoo aan qabno weliba laba dumar oo shantayna kuraas labaa dumarka ah inta laga soo boodaya keena waxaa laga dhigay dumar laga dhigay si aan rag u dartamin ra-iisul wasaare culummadan masaajidkay ka soo baxeen anagana waa la joognaa kursigan dad culumaha iska leh adigana waxay kugu tuhmayeen inaad tahay nin culumo ah tusbax wato hortooda waxaa ka tiri ma laydin dulminaayo qof gaar ah ma wati ilaahaa ila og aad tiri sida ilaahay aad ugu been sheegtay ummaddaanna aad ugu been sheegtay inaadan ku liibaanaynin ogow habaarka cabdikariin xuseen guuleed oo arrimahaasoo dhan dullaal ka ahaa baa maanta wuxuu doonayo in uu dalkan madaxweyne ka noqdo nasiib darro weyn waaye waxaan halkan baaq ugu jeedinayaa beesha caalamka soomaali inta ay u kala baxdo oo dhan hadday ahaan lahayd hawiye hadday ahaan lahayd dir haddii ay ahaan lahayd daarood haddii ay ahaan lahayd digil iyo marifle iyo jareerweyne intaba waxaan leenahay masiirkan ummadda yaan god lagu ridin ka digtoonaada inta xildhibaan oo idinku masasho golaha shacabka iyo golaha aqalka sarena uga diga in aysan hal cod siinin maaragtay cabdikariin xuseen guuleed annaga waxaan la gambanayna ma leh waxaan ka baqayna ma leh dadkan beesha culummada reer faqay waxaa dhacay habargidir waxaa dullaal ka ahay liibaan shuluq nin la yidhaahdo nin alcabdaale la yidhaahdo masiir ummadeed inuu dhaco inuu boobo ugu soo talagalay ayaa jooga oo alcadaale la yidhahdo oo walaalkeen ahaa oo wariye ahaa oo nin fiican aan u naqaanay waxaa jira nin la yidhaahdo cabdikariin xuseen guuleed oo wadnaha la oo xanuunsan oo markii uu galmudug haya habargidir ay soo habaartay ayada laftirkeeda aamiin sacad dhaqankoodii culamo u diinkoodii dhallinyaradoodii wax nagu sameeyey rooble u sheega ha ka waantoobo wakhtigaan leelahay ha ka waantoobo ilaahay ha ka baqo asaga iyo kuwa wada ay dulmigan ugu wadaan ilaahay ha ka baqaan ilaahay ha ka baqaan anaga haddaan adduunka ku waano waxayna aqran ku helaynaa laa shakka waxayna haddaan adduunka ku waano aqran ka helaynaa ظلمي روبلي عدة مرات مركز حقوق بيا وحما ظلمنايو عدالة نكسو علينا عدالة وحكوذا والعدالة دي قولك هذه أها فعل كذي أن كاربنا انت كورو وان شيء يعني والفعل كي آوي ما حكى ريبي
maxaa ku haystaa culammada reer faqi in maanta la dulmo oo qabiil kale la siiyo oo in adeerkaaga xaaskiisa aad siisaan khadiija maxamed maqzuumi ayadoo safiirnimadii ka soo wadeen bakistaan intaad noogu keenteen 3 bilood ka hor ayaan ka hadli jirnay bal fiiri cadaalad darada jirta soomaali weyn safiirnimo ayaa laga soo wada bakistaan ay joogto cabdikariim